kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka telefishinka Somali Channel oo idinka imanaya stuudiyaha magaalada Nairobi. warka waxaa idin la socodsiin doona anigoo Maxamed Yamani. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa kamid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa waxa ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Garowe. heshiiskaasi ayaa lagu cadeeyay in Puntland ay qaadatay nidaamka 4.5 oo muran badan ka taagnaa. madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu damacsanaa inuu fashiliyo heshiiska ka dhacay magaalada Garowe kadib markii uu sheegay in uu ka hor dhacay qodobada heshiiska intaan la saxiixin. musharaxa madaxweynaha xisbiga UNP ayaa kumanaan taageerayaasha xisbigaasi waxa uu kula hadlay degmada Cali Sabiix ee dalka Djibouti. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa waxa uu shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya waxaana uu si adag uga horyimi heshiiskii ka dhacay magaalada Garowe ee Puntland ay ku qaadatay nidaamka 4.5. ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya waxa ay fashiliyeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa isla markaana la dhigay goob maqaaxi oo ay dadku isugu yimaadaan oo ku taala magaalada Muqdisho. qodobada dhanka caalamka ee warkayga ku daawan doontaana waxaa kamid ah dalka Giriiga oo bilaabay inuu kumanaan qaxootiga dib ugu celiyo wadanka Turkiga. arrintaasi ayaana ka dambeysay heshiis u dhaxeeya wadamada midowga Yurub iyo wadanka Turkiga. qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsanba goordhow ayaan isugu soo noqon doonaa hase ahaatee marka hore qadar adeega bulshada.